السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكو سو laabasho kale oo wacan waxaynu wadnay ka shaqeyntii imtixaanka qaranka ee maadada biology-ga. waxaynu hore uga soo shaqeynay unit 1 qaybtiisii hore oo ahayd multiple choice amba goobo geli jawaabta saxda ah oo aynu 15kii hore ka shaqeynay. maanta halkii baynu kasii bilaabi doonaa amba kasii wadaynaa su-aashii 15aad ee nagu joogtay. markaa su-aashii 15aad xagga ku xigi lahayd waxaa ku xigtay su-aashii goobo geli lahayd su-aashii 17aad. markaa waa error yaroo jira buuguna waa first edition. markaa waxay horena waynu kusoo aragnay markii hore aynu ka shaqeynteeni hore errorkaas oo kale oo dhacay. markaa su-aashii 15aad ee nagu joogtay waxaa ku xiga su-aasha 17aad oo 16kii waa ka maqan. markaa su-aasha 17aad waxay u dhigan tahay a party of eggs and sperm different cell in your body are different because they have different waxaa lagu leedahay eggska iyo spermku way kala duwan yihiin baa lagu leedahay eggska iyo spermku cellka jirkaaga ku jira way kala duwan yihiin waayo waxay haystaan A-da proteins, B-da vitamins, C-da starch, D-da energy. su-aasha shaxday amba su-aasha jawaabteeda saxdii waxay noqonaysaa A-da oo proteinsa waayo cellku isaga proteinka samaysan jiray mid kastaaba ribosomka lagu samayn jiray ribosomeska sayidkaasa lagu samayn jiray amba bartaasa lagu samayn jiray marka cellka la eegayo cell kastaana isagaa samaysan jiray different protein amba type of protein uu u baahan yahay amba markaasi ay tahay in uu cellku qaato. markaa different proteinkaas ayaa keenaya inuu kala duwanaado. jawaabteena saxdiina waa A-da oo proteinsa. waxaynu gelinaa qaybteenii labaad oo ah structure questions amba su-aalaha sida tooska ah. structure questionskeena su-aasha koowaad waxaa lagu leeday waa table. markaa waxaynu soo qoranay magacaantii aynu gelin lahayn baanu soo qoray waynu ku buuxbuuxinaynaa. waxaa lagu leeday structure questionska xabadda koowaad with reference to the plant cell waxaad ka dhiganaysaa tixraac amba aad kaga shaqeynaysaa plant cellkii. marka waxaa lagu complete the below by writing the name of structure waxaad qoraysaa magacaantii structureka amba su-aalaha qeexitaanada description eedaynu ku jira ayaad ku buuxinaysaa B-da magacooga. marka qaybta xabadda koowaad waxaa lagu weydiiyey column A-da number 1kiisa contains the enzyme response from the synthesis of energy for the cell. marka hore waxaynu ka soo hadalnay noocyadii kala duwanaa uu cellku lahaan jiray iyo magaranaysa waxyaabihii qeexitaanadiisa. cellku wuxuu lahaan jiray organelles kala duwan oo qaar different ay ka ahaayeen plant cellku qaar animal cellku ay same ka ahaayeen amba similar iyo qaar ay different ku kala ahaayeen. marka mid kasta waynu soo qeexnay. imika waxaynu sameynaynaa oo keliya taa inaynu waa qeexitaanada descriptionska meesha yaala aynu u eegno. marka mitochondriada oo anigu hore ugu soo sheegnay wuxuu ahaa marka waxa shaqooyinku qabto mid ka mid ah ayuu weeyaan waxa su-aasheena koowaad laynoo dhigay magacun baa laynaga rabaa. marka waxay noqonaysaa mitochondria. marka mitochondria aynu ku buuxinaynaa bartaasi ugu horeysa waxaynu ku buuxinaynaa mitochondria aynu ku buuxinaynaa. functionsku qaban jiray waxaa ka mid ahaa mitochondriada inuu wuxuu sameyn jiray wax la yidhaahdo ATP synthesis. waa ATP synthesis meel yar ku note garayso waxyaabahan functionskanu sheegayno mid kastaba waxaynu ka sheegi doonaa information dheeraada si aan waxaan u fahanno. informationska wixii afkan ka sheego oo warqadiiba ku qoran doonta. wuxuu sameyn jiray wax la yidhaahdo mitochondria shaqooyinku qaban jiray ATP synthesis wuxuu sameyn jiray ATP-ga mitochondria lagu sameyn jiray. sidoo kale wuxuu ahaa provide energy from the cell wuxuu siin jiray
cellka energy amba magaranaysaa tamartu ku shaqeynayo. sidoo kale wuxuu production of heat, wuxuu soo saari jiray heatka. waa shaqada saddexaad aba shaqada labaad uu qabto. waa isku mid provides energy from the cell, the production of heat, iyo sidoo kale ATP synthesis. saddexdaa mid waad qoranaysaa. sidoo kale wuxuu ahaan jiray wuxuu role as independent unit with eukaryotic cell. DNA-da marka loo eegayo wuxuu role muhiim ka qaadan jiray si independent unit ah eukaryotic cellka. isagana xagga dambe kugu qeexi doono wuxuu yahay eukaryotic cell. sidoo kale wuxuu ahaan jiray shaqooyinku qaban jiray kale waxay ahayd generates most of chemical energy needed to power the cell biochemical reaction. wuxuu u sameyn jiray cellka inuu generate gareeyo chemical reactionska loo baahayay dhacaya inuu awood u siiyo markuu dhacayo reactionka biochemicalka ahi. sidoo kale wuxuu programmed cell dies, wuxuu programmin jiray salalkii dhintay cell dieska ayuu programmer ku ahaan jiray oo uu soo programmi jiray amba uu habeen jiray. sidoo kale wuxuu waa storage of calcium ions. calcium ionta ayaa lagu storage gareeyaa mitochondria. intaas waa functionska uu leeyahay mitochondriadu. kana waa mid kamid ah qaab kale lagugu yara dhigay waxa lagu contains the enzyme responsible for synthesis of energy. energy waxa sameyn jiray mitochondria. talabaad waxa lagu contains the pigment that drives solar energy. taasina waxay noqonaysaa su-aasheenaasina chloroplast bay noqonaysaa oo ku buuxinayna chloroplast. chloroplast wuxuu qaban jiray functions ku qaban jiray waxaa kamid ahaa inuu usoo qabto pigmentsku usoo qabtaan energy-ga amba solar energy iyagun baa isticmaalay. markaas si aad u fahanto waa energy-gu usoo qaban jiray chloroplastku. waxaanu ahaa si gaara dhirta amba plant cellka. shaqooyinku qaban jiray kale waxaa kamid ah meel baad ku qoranaysaa observe amba observation of light energy. energy-gu soo qabanaya uu soo nuugayaa light energy-ga amba solar energy ka oran kartaa. conversation for the into biological reaction energy, wuxuuna ka dhigayaa si uu isticmaalo biological energy. sidoo kale wuxuu sameyn jiray production of wax la yiraahdo NAB delta DH2 ayuu sameyn jiray amba evaluation of oxygen through the process of photosynthesis of water. marka photosynthesis ku dhacayo wuxuu sameyn jiray oxygen inuu sameynta sida dhirtu u sameysato magaranaysaa cuntadeeda ayuu ka caawin jiray oxygen iyo waterka si ay usoo qaadato chloroplast. sidoo kale production of ATP by photosynthesis wuxuu sameyn jiray ATP inuu soo saari jiray photosynthesis marka lagu guda jiro chloroplast. sidoo kale shaqadu qaban jiray waxaa kamid ah chloroplast contains the pigments. wuxuu ka koobnaa pigments kuwaasoo chlorophyll wax la yiraahdo oo kasii tirsan chloroplast oo kamid ah oo la yiraahdo chlorophyll ayuu to observe light energy. chlorophyll kaas oo soo qabanay energy-ga pigment chlorophyll wax la yiraahdo marka oo chloroplast ka tirsan. marka shaqada kale uu qabto chloroplast intaas ayaan ku dhaafinaa. su-aashii koowaad ee structure question-ka su-aasheedii labaad. ta saddexaad contain structure that are responsible for the transmit hereditary information. hereditary information ka waxaa qaban jiray taasina nucleus-ka wuxuu u qaabilsanaa in information-ka uu qabto. nucleus-ka oo aynu hore usoo sheegnay wuxuu yahay iyo wuxuu qabto shaqadiisa. marka nucleus-ka haddaynu shaqooyinka qaar ka sheegno nucleus-ku wuxuu ahaan jiray control center of the cell. centerka wuxuu ku yaalay cellka uuna controli jiray. sidoo kale wuxuu ka kooban yahay contains DNA, wuxuu ka koobnaan jiray DNA nucleus-ku. sidoo kale wuxuu coordination ku sameyn jiray amba uu hagaajin jiray cellku isku habeen jiray the cell activity-da cellka ka socda. cell maxaa kamid ah bal cell activities-ka coordinateska ku sameyn jiray which including protein and enzyme synthesis. protein-ka marka la sameynayo iyo enzyme-ka marka la sameynayo ayuu coordinate gareyn jiray. sidoo kale wuxuu sameyn jiray reproduction cell
amba waxaan u naqaanay cell diffusion, cell growth, waxaasoo dhan activity-ga uu coordinate jiray nucleusku. sidoo kale wuxuu sameyn jiray production of ribosomes, wuxuu soo saari jiray ribosomeska proteinska lagu sameeyo amba meesha lagu sameeyo proteinka nucleuska ka qayb qaadan jiray si uu ribosome ku sameeyo protein. waa shaqooyinku qaban jiray markaa nucleusku. intaasina haddaynu ku dhaafno qaybta saddexaad. su-aasha ku xigta waxa weeyaan afraad, only found in the plant cell in the animal cell, not in animal cell. wax laga helo animal cellka laga helin ee laga helo plant cellka. isaguna taasina waa su-aasheena afraad, waxay noqonaysaa chloroplast. chloroplast waxay ku jirto plant cellka, animal cellka kuma jiri jirin. weliba su-aasha waxaynu ina xukumaya waa tii hore lanoo yiri with reference to plant cell. marka chloroplast baan laga helin animal cellka, waayo mitochondria waa laga helaa, nucleuskana waa laga helaa animal cellka, laakiin chloroplast lagama helo animal cellka, plant cellkunbaa laga helaa. sidoo kale waxaa lagu yidhahdaa su-aasha shanaad, the acts as selective barrier between the cell and its surrounding. waxaa lagu yidhahday mid kamida weeyaan functionsku qabto, kaasina waa cell membrane. functionskiisa kale uu qabto waxaa kamid ah cell membrane-ku functionska kale uu qaban jiray waxaa kamid ahaa wuxuu ahaa they keep toxin substance out of the cell, inuu kasoo saaro cellka toxin substance-ka isagoo dibadda uga soo saaraya cell membrane-ku, oo dibadda wuxuu ku yaalay cellka. cell wall-ka animalka marka loo eego cell wall unbaa ka xigay xag dibadda, waxaa ku xigay cell membrane. cell membrane-ku weliba wuxuu ahaan jiray oo kale contain shaqooyinku qaban jiray receptors. wuxuu ka koobnaan jiray receptors ama channels that allows specific molecules. wuxuu ogolaan jiray walxaha kooban oo markaa loo baahan yahay cellka, wax kastaba in iska soo galaan ma ogolaan jirin. iyaga iyo cell wall-kuba isku mid bay ahaayeen. cell wall-ka isaga kasii outside-ka kasii xigay. markaa ta koowaad waxa weeyaan qoranaysaa keep toxin substance out of the cell. wuxuu ka ilaalin jiray cellka waxyaabaha sunta ay dibadda kaga imanaya. sidoo kale wuxuu ka koobnaa receptors iyo channels, kuwaasoo u ogolaan jiray specific molecules, walxaha gaar oo keliyaata. maxaa kamid ah walxaha such as ionska dibadda kaga imanaya, nutrientska dibadda kaga imanaya, wastes khashinada dibadda kaga imanaya, metabolic productiga dibadda kaga imanaya, kuwa dibadda loo saarayo. waxaba waxa uu qaybsanaa cell membrane-ka. sidoo kale wuxuu ka caawin jiray shaqada kale uu qaban jiray waxay ahaan jirtay labadii hore soo sheegnay maha helps cell to communicate. wuxuu ka caawin jiray shalka inuu la xiriiro oo maintain ilaaliyo their shape qaabkiisa. cell membrane-ka ilaalin jiray oo xagga dibadda u xigay, oo xagga xigay cell wall-ka carry out chemical messages. sidoo kale wuxuu qaadi jiray chemical messageska amba fariimaha chemicalka ee dhacaya. sidoo kale wuxuu transport and share ku sameyn jiray material. marka waa saddexda shaqo uu qaban jiray cell membrane-ku. waxaynu kusii xigsiin doonaa qaybteena ku xigta oo ah magaranaysaa su-aasha labaad oo structure questionska. su-aasha labaadna waxay u dhigan tahay sidan. waxaa lagu weydiiyey complete the table below which compares the structure of typical plant, animal and prokaryotic cell. waxaa lagu yidhahday dhamaystir oo waxaad ku buuxisaa structureska adigoo u eegaya plant cell, animal cell iyo prokaryotic cell. maxay kala ahaayeen haddaba saddexdan? plasmidku iyo nucleus iyo waxaa lagu siiyey mitochondria, xagga kalena plant cell, animal cell iyo prokaryotic cell. marka plasmid wuxuu ka mid ahaan jiray prokaryotica, wuxuuna ahaan jiray waa small extra chromosome DNA molecule. wuxuu ahaan jiray wax yar oo kamid ah chromosomes extra oo DNA-da la socda, kuwaasoo cellka ka mid ahaa within the cell. sidoo kale wuxuu ahaan jiray that can replicate independently. wuxuu u ahaan jiray wuxuu isku replicate gareyn jiray si independently amba madax bannaan ayuu
uu sameyn jiray inuu isla bilaabo uu extra chromosome badan sameeyo amba chromosome iyo DNA zaid ah oo ka baxsan intii loo baahnaa markuu sameeyo ayaynu oran jiray plasmid. Sidoo kale wuxuu ahaan jiray monoprokaryotic half plasmid, waayo prokaryotic wuxuu ka mid ahaa magaranaysaa cellskii aynu kala bixinay labada eukaryotic cell iyo prokaryotic cell. Marka prokaryotic buu ka mid yahay plasmidku. Sidoo kale wuxuu qaadi jiray plasmid carry a small number of non-essential genes, wuxuu qaadi jiray number yar oo non-essential genes ka mid ah geneska aan loo baahnayn baan muhiimka ahayn, kaasoo weliba sameyn jiray are copied independently, si wuxuu copy gareyn jiray si madax bannaan of the chromosomekii inside the cell ku jiray cellka dhexdiisa ayuu wuxuu sameyn jiray copy inuu ku sameeyo independently si madax bannaan baan magaranaysaa iyadoon loo baahnayn buu sameynaya. Marka waxaynu oranaynaa chromosomeka extra waxaynu oranaynaa plasmid oo wuxuu ka tirsan yahay prokaryotic cellka oo wuxuu sameynaya chromosome iyo DNA aan loo baahnayn. Sidoo kale waxaynu karnaaba oo intaasoo kale la mid ah waa an additional circular base of DNA called plasmid. Wuxuu ahaa additional DNA ayaynu oranaynay amba DNA zaid oo u baahnayn oo weliba circular basis ah oo qaybo yaryar oo circle oo si samaysan circle ayaynu oran jirnay waa plasmid. Sidoo kale haddaynu eegno prokaryotic siduu uga mid yahay prokaryotic iyo plasmid sidee maxay ku kala duwan yihiin. Prokaryotic wuxuu ahaa some prokaryotic are carry on small circular of DNA called plasmid oo hore soo sheegnay. Marka DNA circular oo smaller ayuu qaadi jiray prokaryotic cellku, laakiin prokaryotic wuxuu ahaan jiray waa as a single loop of DNA, wixii single loop of DNA ka badan wuxuu noqonayaa plasmid haas oo uu qaadayo prokaryotic cellku. Sidoo kale waxaa inoo yaala meesha prokaryotic cellka iyo eukaryotic cellku maxay ku kala duwanaan. Prokaryotic cellku wuxuu ahaan jiray waa prokaryotic cell are organism made up of cell that look of cell and that look a cell nucleus or any membrane in case organelles. Meel baad ku qoranaysaa prokaryotic cellsku waxay ahaayeen organisms made up ka samaysan of cell cellku ka samaysan that look a cell nucleus, wuxuuna lahayn cell nucleuska amba sidoo kale oo buuraayay any membrane oo wax membrane ma leh in case organelles. Marka organelleski uu ka koobnaa cellku wax membrane ma leh wax nucleus ma leh. Sidaynu soo sheegnay casharkii hore organelleskan amba cytoskan cellka ka mid ah sida nucleus iyo mitochondria iyo cytoplasm iyo qaar waxay ahaayeen single membrane, qaar double membrane, qaarna non membrane. Marka prokaryotic cellsku waxay ahaan jireen magaranaysaa kuwa non membrane-ka, sidoo kale cell nucleusna ma leh. Haddaynu intaa ku dhaafno prokaryotic inteedu cakiskeeda weeyaan eukaryotic cellkuna, oo eukaryotic cell are organisms made up of cell that passes on membrane bone, wuxuu dhex marayaa membrane bone nucleus, wuxuu dhex marayaa membrane bones nucleus that holds kaasoo soo qaadaya genetic material as well as membrane bone organelles, isagoo sidii ugu wacneyd ugu soo qaadaya genetic materialka membrane organelleska kuwa membrane bone organelleska amba organelleska leh membrane boneska ayuu ahaan jiray. Marka si guud ahaan haddaynu u sheegno waxay kala ahaan jireen prokaryotic waxaa kamid ahaa oo kale bacteria oo kale iskeed bay u tarmi jirtay oo wixii iskeed u tarma bay ahaan jirtay iyagii plasmid oo genes iyo chromosomeka iyo DNA da iyo extra aan loo baahnayn bay sameyn jireen iyagaana tarmaya si replicate. Marka waxaynu oran jirnay magaranaysaa anigu kala saarnay prokaryotic cell iyo magaranaysaa oo waxay ku kala duwan yihiin qaar waa membrane ma leh nucleusna ma leh
oo waa pancreatic cellka. Pancreatic cellkuna wuxuu lahaan jiray membrane iyo nucleus. Marka imika labadan su'aasha niyadooda waxa weeyaan waxa lagu dhahday use tick. Waxaa isticmaalaysaa tick if the future in the present and cross x if this absent. Hadduu ku jirana waxaad saaraysaa tick, haddii uuna ku jirin uu absent yahayna calaamada x amba x baa saaraysaa oo kama mid aha. Marka inagu xa iyo magaranaysaa ticktii ma hayno, marka waxaan sameynaynaa non iyo yes baan isticmaalanaa. Ta koowaad nucleuska plant cellka ma laga helaa mise lagama helo. Nucleuska plant cellka waa laga helaa, marka waxaan soo qaadanaynaa mid yes ah. Bartaa yar baynu ku buuxinaynaa yes. Bartaa markaynu dhigno iskaga tegaynaa animal cellka haddana ma laga helaa. Haddana waxaan odhanaynaa nucleuska waa laga helaa animal cellka, taasina waynu dhigaynaa. Haddana waxaa lagu weydiiyey pancreatic cellku muu leeyahay nucleus, laakiin nucleus wuu leeyahay laakiin noocaynu membrane-ka ah ma laha. Marka waxaynu dhigaynaa waa no nucleus weeyaan, no nucleus weeyaan. Marka wanigi soo sheegnay pancreatic no membrane no magaranaysaa nucleus. Marka waxaynu saaraynaa nonta male. Plasmidku ma plant cellku ahaa, ma animal cellku ahaa mise pancreatic. Labada kale midna muu hayn. Animal cellkana kumuu jirin oo kamuu mid hayn, sidoo kale kamuu mid hayn animal cellkana iyo plant cellkaba wuxuu ka mid ahaan jiray pancreatic cellka uu ka mid ahaan jiray. Yes baynu pancreatic cellka dhigaynaa. Ta ugu dambeysa mitochondria plant cellku wuu lahaan jiray, waa midda ugu horeysa wuu lahaan jiray. Sidoo kale waxaa lahaan jiray animal cellka. Marka yes kale inaga maqan pancreatic cellku muu lahaan jiray mitochondria waa maya. Marka hal yes oo keliya ayaynu ku buuxinaynaa animal cellka. Markaas ayaynu uga shaqeynaynaa nucleuska yes baan niri, animal cellka iyo plant cellka waa yes, kii pancreatic-ga waa pancreatic cellka waa non. Sidoo kale plasmidka waxaynu nirahnaa plant cellka iyo animal cellka waa non, laakiin pancreatic-ga waa yes. Sidoo kale mitochondria waxaynu isticmaalnay animal cellka iyo plant cellka ba yes, labadaba waa laga helaa, laakiin pancreatic cell non baynu siinay oo maaha. Marka nucleus iyo mitochondria plant cellka iyo animal cellka waa laga helaa. Plasmidkaas baan laga helin animal cellka iyo plant cellka iyo pancreatic cellka laga helaa. Intaasayna sax ku tahay jawaabteenu. Labadii table baynu ka shaqeynay, inkastoo su'aasha table-ka labaad aynu ahayd sida saxda use the tick if a future is present. Haddii uu ku jiro future-kaasi waxaa isticmaalaysay tick. Haddii uu ka maqan yahayna if it is absent use for cross, waxaa isticmaalaysay cross amba x. Marka yes iyo no baa isticmaalnay, waa isla xaggii. Marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.